mashruucani caafimaad oo daryeeli doona in ka badan 25 xarumo caafimaad oo ku yaala deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolada Togdheer iyo Daadmareed ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Burco. mashruucani oo hogaaminaysa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 sano ah waxaana daahfurkiisa maanta ka soo qayb galay barsaabka gobolka Togdheer, maamulka Daadmareed iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolada Togdheer iyo Daadmareed. isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye Aadan Malaay iyo agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Soodi ayaa ugu horeyn ka warbixiyay mashruucani lagu tayeynayo xarumaha caafimaadka. mashruucan wuxuu كفر قرينا يا عافمات باهيد عافمات دولة دقمة برقاء يدقمة دويني مشروع الدولة ده هو جامنيسا وأنا كواحد يسكن الدولة ده هو يد الله كواحد الدولة إن سيرفيس كذا أي نقدان بلاش مشروع عنه قف كستور هالمية واحد دوينا قف كستور هالمية مليار المكستور هو يكستور له هو يكستور للشقايو المكستور شنتير كيا ومية شوية نقدان دوينا واحد دوينا دوينا رابرقاء iyo reer oodoweyne iyo mas'uuliyiinta gobolada inay gacan buuxda lagu siiyaan marka dadweynaha reer Togdheerna waxaan ugu baaqayaa in mashruuc primary health care oo ka shaqeynaya wixii Burco ka baxsan iyo xanaanooyinka magaalada gudaheeda ku yaala inay dadka wacyi geliyaan ay u sheegaan inay xanaanooyinka yimaadaan. barsaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa iyaguna si weyn ugu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay horumarinta caafimaadka bulshada. inaanu sida ugu macquulsan mashruuca oo aan dabada xagga sareyna laga keenay ka soo komay wasaaradda caafimaadka baselinkiisii bilowday qorshaheedii bilowday dadweynaha gobolka Togdheer waxaan halkan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan mashruucan runtii waa wax soo kordhay inaynu soo dhaweyno innagana waxaan ballan qaadaynaa maamul ahaan iyo shacabba in aynu la shaqeyno dadka hawlwadeennada ah ee hawsha maaragtay ku jira. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.